kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta shile ee ku soo gudbino warbixinada dunida iyo xogta caalamka ee dagal kasta. barnaamijkeena warbixintan waxaanu idinku soo gudbin doonaa warbixin markii ugu horeysay shaaca ka qaadaysa dhibaatada ay aragtay dalka Kenya xiriirka ay u jartay Soomaaliya oo ay dareemayso markii ugu horeysay saameynta ay lahayd Soomaaliya ee hore aan loo darasin gaar ahaan iyadoo Kenya ay hore u dareemi jirtay in iyadu ay martigeliso dadka Soomaaliyeed ee ugu tirada badan oo ay kulib iyo abaal sheegato. warbixin lagu daabacay jaridda Africa Report ayaa soo xiganaysa saameynta ay leedahay xiriirka labada dal ay kala goosteen iyo sida muwaadiniinta dalka Kenya ay saameynta ugu badan ugu yeelatay tan iyo markii Kenya iyo Soomaaliya xiriirkoodu oo go'ay. waxaa soo shaabaxaya dhibaatada muwaadiniinta ee labada dhinac gaar ahaan Kenya oo markii ugu horeysay dareemaysa dhibaato aan hore loo arag, taas oo ay ugu weyn tahay ganacsiga qaadka. balse waxaa soo shaabaxaya muwaadiniinta Kenyaanka ah ee ku nool Soomaaliya tiro ahaan oo aad u tiro badan iyo shaqooyin kala duwan ka haya guud ahaan Soomaaliya oo walwal ka qaba arrintani. xiriirka dalka Kenya iyo Soomaaliya bishii December waxa ay Kenya ay martigelisay booqashadii madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi oo uu ku tagay magaalada Nairobi oo dowladda Soomaaliya si weyn uga xanaajisay. dowladda Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya faragelin inay ku hayso howlaha doorashada ee Jubbaland gobolka ka tirsan Soomaaliya. Kenya sidoo kale waxaa Soomaaliya ka jooga ilaa iyo 3,600 oo askari oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee Midowga Afrika. jawaabta Kenya ee cabashada Soomaaliya wax yar ayay ka hooseysay midda Soomaaliya. afayeenka dowladda Kenya xilligaa wuxuu ku adkeysanayay in labada dal ay wadaagaan himilooyin wax ku ool ah. waxa uu si naxariis leh ugu faraxsan yahay Soomaalida, wuxuuna sheegay inay martigeliyaan kumanaan qaxoonti ah, waana inaan si ahaano daris wanaagsan. tabayaaqadii bishii December kulan ay yeesheen ururka IGAD, mas-uuliyiinta labada dal waxay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo xiriirkooda diblomaasiyadeed, laakiin shuruudda Soomaaliya ay ku dhaqaaqday waxay ahayd in ergo ka socota IGAD loo diro guddi xaqiiqa raadina xuduudda labada dhinac oo baaritaan dheeri ah ku sameeya xiisadda soo shaacbaxday, waxayna dhaawacaysaa muwaadiniinta caadiga ah ee labada dhinac. siday ku warantay jaridda Africa Report, Muqdisho waa magaalo firfircoon, dadaalkeeda dib u dhisku wuxuu soo jiitay kumanaan Kenyaan ah. bishii December 2020 in badan oo Kenyaan ah ayaa ka shaqaynayay Muqdisho, waxayna ku soo noqdeen dalkooda fasax iyagoo xilligaa diblomaasiyadda ay xumaatay. Anthony Mabua oo ah madaxa Safari Coffee oo ah meelaha lagu jecel yahay ee dhexdhexaadka ah Muqdisho, Mabua waxa uu leeyahay waxaan dareemayaa in kumanaan Kenyaan ah ay ka faa'iideysanayaan fursadaha cusub ee ka jira Soomaaliya. haddii aan la talin lahaa madaxweynaheena waxaan u sheegi lahaa in si degdeg ah uu sameeyo qabanqaabada wadahadal oo uu xaliyo khilaafka u dhexeeya labada dal, ayuu yidhi Mabua. waxaan jeclaan lahaa inuu muujiyo hogaamin maadaama Kenya ay tahay dal walaal la ah Soomaaliya isla markaana aysan ogolaan khilaafka, maxaa yeelay waxaan isu baahannahay midba midka kale horumarka gobolkeena. Mabua sidoo kale wuxuu dib ugu soo laabtay dalkiisa bishii December. xiriirkii xumaana wuxuu halakeeyey safarkiisii isagoo si joogta ah u raadinaya wixii cusboonaysiina. waxaan ahaa nin cabsi badan, waxaan haystay fiiso saxa inkasta oo aana ogeyn damaanad qaadka in dib la soo celin doono. waxaan si toos ah ugu xidhmay TV-ga daawashadiisa si aan u arko waxa dhici kara. Muqdisho waxay siisay fursad wanaagsan. muwaadin Soomaali ah Xasan Aadan oo ku sugan Muqdisho ayaa sheegay caqli maahan Soomaaliya inay sidan degdeg ah go'aanka u samayso xiriirka diblomaasiyadeed. dhibaatada waxaa noqon doonta muwaadiniinta caadiga ah labada wadan oo hadda la silcaya laba madaxweyne oo awood aan u lahayn shacabkooda. dadka labada dal waa inay ka fakaraan si ka duwan sida ay yihiin, ayuu sheegay. waxaa jira mucallimiin badan oo Kenyaan ah oo ka shaqeeya
nidaamka waxbarashada ee Soomaaliya. Patrick Nuguna waa mid ka mid ah wuxuuna ka shaqeeyaa iskuul gaar loo leeyahay. khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya aniga shakhsiyan ayuu ii saameeyay ayuu sheegay. Anigu waxaan ka shaqeeyaa macallin ahaan Muqdisho, waana isha aan ku noolahay. marka Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay jarayso xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Kenya, wax walba waxay noqdeen waxaan la saadaalin karin. waxaanan si joogta ah uga walwalsanahay inaan waayo shaqadayda ayuu sheegay. waxaan ka codsanayaa siyaasiyiinta dalkeena iyo kuwa awoodda leh madaxweynaha inay tixgeliyaan Soomaaliya oo inay ka fogaadaan inay farageliyaan arrimaha gudaha Soomaaliya oo ay si fudud ugu ogolaadaan Soomaaliya inay xaliyaan khilaafkooda si aan dhammaanteen ugu noqono dhinaca nabdoon ayuu sheegay. Cabdullaahi Sheekh oo ah macallin iskuul Soomaaliyeed inkastoo uu qirayo doorka muhiimka ah ee ay ciyaarayaan Kenyaanka magaalada Muqdisho, wuxuu ku doodaya in dowladda Kenya ay mas'uul ka tahay burburka xiriirka. Cabdullaahi Sheekh ayaa sheegay dalkeenu uu ku saxsanaa go'aankani in xiriirka uu jaro Kenya laba arrimood awgood: taageerada qaldan ee Jubbaland, Axmed Madoobe iyo dhiirigelinta maamulka Somaliland ee raadinaya gooni uga go'a Soomaaliya. kuwana waa xadgudub ula kaca oo ka dhana qarannimadeena. xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa si ahaan doona sida laga digayo khilaaf qalafsan, maadaama kiiska muranka oo bilaaban doono bisha Maarso 2021 halka Kenya ay dabada ka riixayso in heshiis ka baxsan maxkamadda ay la gasho Soomaaliya. dowladda Soomaaliyana ay u xaglinayso in arrinta ay tahay in loo maro maxkamadda cadaaladda dunida oo go'aan ay ka gaadho. Cabdirashiid Xaashi oo ah agaasimaha Maxadka Heritage ee daraasaadka iyo siyaasadda oo xaruntiisu tahay Muqdisho, wuxuu sheegay inaysan macno lahayn muranka diblomaasiyadeed iyo kala aragti duwanaanshaha waa mid caadi ah. xiriirka caalamiga ah iyo wadamada xuduudaha wadaaga in arrimaha loo kala saaro si nabad ah iyo in wada shaqaynta la helo waa astaan diblomaasiyadeed. Xaashi wuxuu leeyahay Kenya iyo Soomaaliya weli waa daris. siyaasiyiinta iyo bulshada guud ahaan waxaa la fahansan yahay in ilaalinta danaha si wanaagsan loogu adeegi karo iskaashiga. waqtigan la joogo xiriirka labada dal ayaa maraya meeshii uu xumayd abid, wuxuuna ku doodaya in labada dal ay u baahan yihiin inay qaataan wada hadal. ciidamada Kenya waxay saldhig ku leeyihiin Jubbaland. habdhaqankooda gobolku wuxuu ka mid ahaa sababihii ugu waaweynaa ee keenay xiisadda diblomaasiyadeed. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa u muuqday inay si weyn u rajaynayaan ka bixitaanka ciidamada Kenya ee Jubbaland, iyadoo aan loo eegin dadaalkooda ay sheegeen inay kaga hortagayaan dagaalamayaasha. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed ayaa ku celiyay dareenno la mid ah oo uu muujiyay wax badan ayaa khatar ku jira marka labada dal ee dariska uu xumaado xiriirkooda. haddii sida hadda taagan tahay ay tahay, waxay u badan tahay in Soomaaliya ay dalban doonto in si degdeg ah loogala baxo ciidamada Kenya Soomaaliya. tanna waxaa laga yaabaa inaysan ku fiicnayn Kenya. tan dambe waxaa laga yaabaa inay go'aansato aargoosi. dagaalamayaashu waxay si aad u eegayaan burburka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya, waxayna fiirinayaan siyaabaha looga faa'iideysan karo. Cabdiwahaab ayaa ku dooday in Kenya gaar ahaan ay u baahan tahay inay diiradda saarto arrimaha amnigeeda gudaha. ciidan kuma hayn karto Soomaaliya weligeed. intaa waxaa sii dheer, joogitaanka Kenya waa mid aan la mahadinayn, halka muwaadiniinteeda ay hadda dilayaan oo ay dhibaataynayaan xagjiriinta ku sugan. intaa waxaa dheer, xawaaladaha Soomaalida ayaa qayb weyn oo muhiima ka qaatay dhaqaalaha Kenya. sanadkii 2020 xogta bangiga dunida oo ay soo xigatay jariiradda Africa Report ayaa qiyaastay xawaaladaha Soomaalida ee qurbo joogta Kenya inay gaadheen dhaqaalaha ka soo xarooda 2.9 bilyan. Vincent Thomas oo macallin kale oo Kenyaana oo degan Muqdisho wuxuu sheegay in si joogta ah ay indhaha ugu fureen rajada suurtagalnimada kumanaan Kenyaana oo shaqo la'aan ku ah guryahooda inuu ka shaqaynayo Soomaaliya. Thomas ayaa yidhi Kenya waa inay ogaataa inay u baahan tahay Soomaaliya inta ay noo baahan yihiin. tusaalaha waxaa ah dhibaatada beeraleyda qaadka ee Kenya ayaa malaayiin dollar ka hela qaadka ay u dhoofinayeen Soomaaliya. hadda ganacsigaasi waa la mamnuucay, waxaana ka baqaya in Kenya ay lumiso wax badan oo dane kala ah.
haddii aysan ka fiirsan siyaasadeeda arrimaha dibadda ee Soomaaliya.